السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا كسو دوادا عياريه قدام بي عالمكا كوحدا أرسنال لو حالي لقبديي كوحدا مانشستر سيتي أو ويلسي ودتا قوليدا ليفربول أيضا حالي واي بديسي هالكا كوحدا سبوريس توتنهام أيضا لقبديي سيلو أركا كوبكا دونكا كفرمي دونو دالكا قدر oo ka dhiman maalmo yar koobka adduunka waxa la aaminsan yahay inay ka dhiman yihiin maalmo yar wuxuuna ka furmi doonaa dalka Qatar laakiin waxa sheegaya ciyaaryahanka Sadio Mane oo la sheegay inuu dhaawac ku seegi doono koobka adduunka waxa seegi doona ciyaaryahanno waaweyn ah sida ciyaaryahanka xulka Argentina Lionel Messi ayaa seegi doona koobka adduunka waxaana koobka adduunka ka dhici doona dalka Qatar la aaminsan yahay inuu yahay kii ugu xamaasadda badnaa xil ciyaareedkan maadaama dawladda Qatar ay isku diyaarisay koobkaas halka dalal kamid ah dalalka Yurubna ay ka soo horjeedaan in waddankaasi lagu dhigo koobka adduunka iyagoo dhaleecanaya wararkii ugu dambeeyay caalamka waxa ku maqli doontiin oo kale kooxda Chelsea ayaa iskaga hartay gabi ahaanba xalay koobka Carling Cup-ka kooxdan ayaa la aaminsan yahay markuu iskaga tagay tobarihii ama milkiilihii kooxda Roman Abramovich waxa Chelsea ku socdo qaab ciyaareed aan wanaagsaneyn xilli ay soo gateen ciyaaryahanno waa wanaagsan haddana kooxda Liverpool xalay ayadana waa ay soo baxday Manchester City iyo Chelsea oo xal is wajaheena kooxda Chelsea waxay u egtahay in sanadka dambe la siiyo ciyaaryahanno aad u wanaagsan laakiin Chelsea maxay isdhigi kartaa xilli ciyaareedkan Chelsea waxay ku sugan tahay kooxda Chelsea waxay u egtahay in dhaqaale kale la geliyo si xilli ciyaareedka soo socda u qaado koobka Premier League laakiin Chelsea hadda loo jeedo ma ahan Chelsea qaab ciyaareed fiican ku jirta halka kooxda Arsenal ee ayadana diyaar u tahay inay soo rawaal celiso kooxda Arsenal ayaa hoggaanka Premier League inkastoo xalay iskaga haran koobka Carling Cup-ka haddana Arsenal waxa la aaminsan yahay in xil ciyaareedkan ay horyaalka aad u wanaagsan yihiin markii loo fiiriyo koobabka kale toobaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa xalay guuldaradiisa aad uga xumaaday kooxdiisa wuxuuna Mikel Arteta sheegay inuu ka xun yahay kooxda guuldarada soo gaashay laakiin haddana Arsenal ciyaaryahanno wanaagsan ay sanadkan haysataa Arsenal maxaad u rajeynaysaa mar walba kala soco wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Baga Cabdirashiid